kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada Wajawa Media halka aad ka helaysaan warar sugan xogo sax ah iyo falanqeyn qiimo badan anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Wajawa waxaan idin soo gudbinayaa maanta qodobadii ugu door corona warkeena caalamka iyo dalka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu fashil ku soo dhamaaday kulankii iyagii dowladda federaalka u dhaxeeyay Mareykanka oo si toos ah u soo fargeliyay khilaafka villa Soomaaliya iyo mucaaradka baaq culusna soo saaray Sodma iyo WFP oo ka wada hadlay dardargelinta ka jawaabista masiibooyinka iyo qorshaha cusub ee 2026 ilaa 2028 Ethiopia iyo Sacuudiga oo ka wada hadlay amniga badda cas iyo geeska Afrika xilli uu jiro loolan weyn Mexico oo xaalad degdeg ah gashay ka hor diyaar garowga koobka adduunka ee 2026 qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan u diyaar garowga ayagiyo faahfaahsan rabtaa inaad la jaan qaado xawaaraha dunida tiknoolajiyada baraadinaysa qalab tayo leh oo aad isku haleyn karto haddaba ku soo dhawow hadaf technology halkan waxaan kugu diyaarinay laptopsyo tayo leh mobilada ugu casrisan oo ila jiraan agabkooda shaashadaha waaweyn iyo dhammaan qalabka IT-ga aad ugu baahan tahay shaqadaada iyo gurigaagaba haddii aad tahay qof ku jira saaxadda warbaahinta gaar ahaan baraha bulshadu waxaan ku haynaa mikrofoono iyo qalabka studio-da oo dhameystiran agab kasta oo IT-ya wixii qalab aad ugu baahato xafiis ama guri tayo caalami ah adeeg la isku haleyn karo iyo qiimo kugu habboon waa halka aad kaga iibsan karto qalabka electronics-ka hadaf technology xarunteenu waa Baydhabo agaarka Shaneem Shantraala la sugin ee maanta na soo booqo hadaf technology hirka tiknoolajiyada mustaqbalka hadafkeenu waa inaan kugu xirno mustaqbalka tiknoolajiyada nagala soo xiriir taleefanada shaashadaha kaaga muuqda aynu ku bilownay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in wadahadaladii ay kula jireen dowladda Soomaaliya ay si rasmi ah u burbureen kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya diiday in laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedyada muddo dhaafka iyo in xal siyaasadeed laga gaaro hanaanka doorashada federaalka goluhu wuxuu sheegay in wadahadaladu ay hayeen kuwa laga doonayay in laga helo is-afgarad ku saabsan jadwalka iyo qaabka doorashooyinka si loo yareeyo khilaafaadka siyaasadeed ee taagan balse sida ay ku doodayaan mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya uu noqday mid aan ogolaan dib u heshiisiin ama heshiis wada jira gelinkii hore maanta shirkii u socday golaha mustaqbalka ayaa soo dhamaaday kadib markii ay ku soo biireen ergo ka socotay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ergo ahaan wasiir Faarax Sheekh Cabdiqaadir iyo Cabdullaahi Sanbaluushe u soo diray mucaaradka ku shirsan Airport Hotel si loo qanciyo in wadahadaladu ay sii socdaan balse natiijadaasi waxay ku soo dhamaatay fashil saacado kadib waxay warmurtiyeed soo saareen golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyagoo dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inaysan rabin inay dalkan doorasho wada ogol ah heshiis siyaasadeedna ku yimaada aysan lagu qaban wadankan Mareykanka oo si toos ah u fargelinaya khilaafka villa Soomaaliya iyo mucaaradka baaq culusna soo saaray dowladda Mareykanka ayaa madaxda Soomaaliya ugu baaqday inay isu tanaasulaan kana wada hadlaan arrimaha dalkaasi ka taagan kadib markii ay fashil ku soo dhamaadeen wada xaajoodkii u dhaxeeyay mucaaradka iyo xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud qoraal lagu daabacay barta X ee safaaradda uu Mareykanku ku leeyahay magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in la sii wado wada hadallada lana muujiyo dulqaad iyo isu tanaasul si loo helo xal lagaga gudbo xaaladda cakiran ee hadda ka jirta Soomaaliya wadahadaladii ugu dambeeyay ee dhaxmara mucaaradka iyo villa Soomaaliya ayaa noqday kuwo keeni waayay is-afgarad ku wajahan dhinaca doorashada dastuurka iyo in aragti laga yeesho xaaladda kala guurka ee Soomaaliya taasi oo sababtay in Mareykanku si toos ah u fargeliyo arrimaha Soomaaliya Sodma iyo WFP oo ka wada hadlay dardargelinta ka jawaabista masiibooyinka iyo qorshaha cusub ee 2026 ilaa 2028 gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Sodma Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa xarunta hay'adda ku qaabilay agaasimaha cusub ee hay'adda cuntada adduunka WFP Soomaaliya
kulankan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga labada dhinac, gaar ahaan u diyaargarowga iyo ka jawaabista degdega ah ee dhisidda adkeysiga bulshada iyo horumarinta nidaamka digniinta hore. Sidoo kale waxaa laga wada hadlay xaaladda bini'aadanimo ee dalka iyo falanqaynta nidaamka kala saarista heerka sugnaanta cuntada. WFP ayaa sidoo kale soo bandhigtay qorshaheedii istiraatiijiyadda dalka ee 2026 ilaa 2028, taasi oo la jaan qaadaysa qorshaha horumarineed ee dowladda. Itoobiya iyo Sacuudi ayaa ka wada hadlay amniga badda cas Geeska Afrika xilli uu jiro loolan weyn. Sacuudi Carabiya ayaa mar kale Addis Ababa u dirtay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda, waxaana qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya oo dhowaan ka soo laabatay Asmara ee dalka Eritrea. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xiriirka labadgeesoodka ee u dhexeeya Itoobiya iyo Sacuudiya, iyadoo labada dhinac ay adkeynayaan muhiimadda ay leedahay in xiriirkaasi loo qaado heer ka sareeya kan hadda, xilli gobolka uu wajahayo isbeddelo amni siyaasadeed oo waaweyn. Labada mas-uul waxay sidoo kale isdhaafsadeen aragtiyo ku saabsan nabadda iyo amniga gobolka, arrimo si toos ah u taabanaya danaha Addis Ababa iyo Riyaad, gaar ahaan Geeska Afrika, badda cas iyo khilaafaadka ka taagan Suudaan. Toddobaad ka hor ayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga uu tagay Addis Ababa, iyadoo baraha bulshada lagu wadaagay sidii loo soo dhaweeyay oo lagu tilmaamay mid bahdilaad diblomaasiyadeed ay muujinaysay. Maxaa ka socda Geeska Afrika? Xaggee ka yimid kororka xiisadda ka taagan gobolka? Toddobaadkii hore, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Sacuudiga oo u safray Asmara lana kulmay madaxweynaha Eritrea ayaa gaaray Addis Ababa, halkaasi oo wadahadallo uu kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya. Muddo ka yar bil gudaheeda, tani waa markii saddexaad oo wadahadal dhexmara Addis Ababa iyo Riyaad. 3 toddobaad ka hor, wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ayaa u safray Riyaad, halkaasi oo uu kula kulmay dhiggiisii Sacuudiga iyo saraakiil kale oo ay ka wada hadleen arrimaha gobolka quseeya. Sidoo kale toddobaad ka hor, wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiya ayaa tagay Addis Ababa, wuxuuna la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Maantana wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa mar kale gaaray Addis Ababa. Tilaabooyinkan isdaba joogga waxay muujinayaan in xiisadda gobolku ay marayso heer ka sareysa waqti kasta hore, isla markaana dhaqdhaqaaqyadu diblomaasiyadeed ay si xawli ah u socdaan, iyadoo Sacuudiga loo arko inuu isku dayo sidii looga hortagi lahaa xiisadda u dhexeysa Eritrea iyo Itoobiya inay isku beddesho gacan ka hadal, xilli ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku celcelinayo inaysan Itoobiya ku sii jiri karin xaaladda bad la'aanta. Hadalladaasna oo sare u qaaday xiisadda gobolku. Ugu dambeyntii, Mexico xaalad degdeg ah gashay ka hor diyaargarowga koobka adduunka ee 2026. Dalka Mexico ayaa galay xaalad amni ah oo fowdo ah kadib howlgal militari oo lagu dilay Nemesio oo loo yaqaano El Mencho, kana mid ahaa hogaamiyaasha ugu awoodda badan kooxaha maandooriyaha ee dalkaasi. Dowladda ayaa sheegtay in howlgalkaasi ahaa mid qorshaysan oo si gaar ah loo fuliyey, iyadoo la xaqiijiyey in Mareykanku bixiyey taageero dhinaca sirdoonka ah. Dilkan ayaa si degdeg ah u huriyey rabshado ku fiday gobollo badan. Koox hubeysan ayaa la sheegay inay gubeen gaadiid, xireen wadooyin muhiim ah, isla markaana ay isu dhaceen ciidamada ammaanka. Wararka rasmiga waxay tilmaamayaan in boqolaal jidgooyaha laga diiwaangeliyey in ka badan 20 gobol, inkastoo inta badan hadda la furay. Xaaladda ayaa saameyn ku yeelatay isu socodka iyo adeegyada bulshada, iyadoo diblomaasiyadu la hakiyey qaar ka mid ah dalxiisayaashuna ay xanibeen magaalooyin xeebeedka. Dowladda Mexico ayaa sheegtay inay waddo dadaalo lagu soo celinayo xasiloonida, halka madaxweynaha dalkaasi ugu baaqay shacabka inay is dejiyaan. Dhacdadan ayaa imaanaysa xilli Mexico ay isu diyaarinayso martigelinta koobka adduunka 2026, taasoo sare u qaadaysa muhiimadda amniga iyo xasiloonida guud ee dalka. Qodobkaas ayaa u dambeeyey warkii aad kala socoteen waa Jawa Media. Intaynu dib ugu kulmi doono warkan war la mid ah, waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.